fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo subscribe noo saaraya mahadsanid. Tani waa sheekada halii lagu naanaysi jiray libaaxii saxraha Cumar al-Mukhtaar. wuxuu ahaa caalim muslim ah haliyey guumaystii Talyaaniga u diiday inay waddankiisa ku hadhsadaan lana dagaalamaya ku dhowaad 20 sano. waqtigiisii dhalinyaronimada wuxuu waqti badan geliyey barashada diinta islaamka halkaas oo uu xafiday qur-aanka kariimka isagoo aad u yar. markii uu bartay qur-aanka wuxuu waqti badan ahaa macallin qur-aan dadka bara qur-aanka. sanadkii 1911 guumaystihii Talyaaniga ayaa ku soo duulay Liibiya oo uu ka soo jeeday Cumar al-Mukhtaar. waqtigan wuxuu jiraa da'da 53 sano. Cumar al-Mukhtaar markan wuxuu go'aansaday inuu waddankiisa ka difaaco guumaystihii isagoo ay weheliyeen dad aad u yar kadib markii dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ku qaadeen ciidamadii Talyaaniga waqtiyo kala duwan iyo goobo kala duwan. jab weyn waa ay u geysteen waxay jareen isku socodkii guumaystaha isagoo ku guuleystay dagaal maskaxeed badan oo uu la ciyaaray guumaystaha. ugu dambeyn waxay qabteen sanadkii 1931 isagoo jira da'da 73 sano kadib Talyaanigu waxay u soo bandhigeen heshiisyo badan kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in ciidankiisu isa soo dhiibaan halkaasna lagu dhameeyo dagaalka hubeysan ee ay kula jiraan Talyaaniga. laakiin Cumar Mukhtaar kama uusan aqbalin heshiiskaas isagoo dhahay hadal geesinimo leh in badanna laga sheekeeyey. We will never surrender. We win or we die. weligeen isma dhiibayno guul ama geeri. Cumar Mukhtaar waxaa la daldalay Sebteembar 1931 Ilaahay ha u naxariisto. From God we come, and unto God we shall return.